qaar ka mid ah musharaxiinta xildoonka ah ee doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo kooban ay ka harsan tahay. Kulan ay wada yeesheen musharaxiin uu ka mid yahay Sheekh Mukhtaar Roobow Ali iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa walaac ka muujiyay xanaanka ay wax u wadaan maamulka talada haya ee Koonfur Galbeed. tan guddiga doorashada run ahaantii haddii ana fiiriyo guddiga doorashada aad micnaa waxaan ku jiraa walaaca musuqmaasuq sababtoo ah guddiga doorashada sida dastuurkeena fasaxayo in 2 bilood ka hor soo magacaabo haytay baarlamaankan hadda oo inta ku furan oo micnaa Koonfur Galbeed oo xildhibaanadii oo diyaar ah oo si official aan furan sataabiyo micnaa bil 7 shay wala furan أنا قلت جوجتها كجار جيك ما إنسان قدوميها خير الله سي ولنا عري تصدور كما قرأ قدوجة والمقعوة وشجعة لبعضني كوم معلن مقعوة وأنا شجعة والله قريب يقولوا ما كجار حلوانا دي أتين أنت فديدان تاسع وقاعد سان musharaxa Sheekh Mukhtaar Roobow iyo Abdulqaadir Dhagacade oo kamid ah musharaxiinta ayaa ka hadlay doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed ka dhici doona waxaana ay ka digeen in dib u dhac uu ku yimaado waqtiga lagu ballansan yahay in la doorto hoggaanka Koonfur Galbeed insha Allah ta'ala ma rajeeyaan inay nagata doorashada hadareerta Koonfur Galbeed ku dhigi doonta inay nagata mid aan horseedasa Koonfur Galbeed guul nabad iyo nay horumar insha Allah ta'ala may baa ku hadal faday aranta qosayta doorashada may badaayay qodobka koowaad aan ku hadal fadow guddigii doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed guddiga doorashada ee la suubiyo fadhi sada markaan goran oo dastuurka goran may bawaaha in 60 bere doorashada ku hor la diyaariyo la suubiyo guddiga doorashada saasa qorana bome yeedi daaytii lana eedan shan dhaafti beerta markii la abuuro fadhi oo balan abuurna doo ku walmo ka baneel la hawada beerta aaranto fadaano maylana beerta inuu abuur gafiinay ama fadaane waqti hore la abuuro wili baan si kaftama sanadka deeru unu ma yaraane deer i kariyal boortiyo la jiifada la wadaaga xildhibaanadeena saad la socotiin baarlamaankeena shaqa hortaalay oo inaan keeno guddi doorasho muddadii loogu talagalay guddiga doorashadana saad la socotiin waxaan u maleynayaa in waqtigeeda la soo dhaafay xilligii ay in la sameeyo siday doontaa ahaato waxa maanta ka harsan doorashada xilliga loogu talagalay waa wax 30 iyo dhowr maalmood aan u maleynaa markaan waxa sababayna kulley waa dareemi karaa waxaa hawshoodii ka seexday hoggaanka golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaga ayaa ka seexday hawshii inay qabtaan siday doontaa